kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar oo aanu kaga hadli doono biyaha kulul ee ku yaala degmada Erer ee gobolka City isla markaasina aan ku falanqeyn doono faa'iidooyinka iyo xanuunada ay daweeyaan. deegaanka Soomaalida waxa uu ka mid yahay deegaanada la khayraadka dabiiciga ay ka mid yihiin gaaska iyadoo ay jiraan goobo kale oo alla ku manaystay khayraadka dabiiciga. degmada Erer ee gobolka City waxay ka mid tahay goobaha la khayraad dabiiciga iyadoo ay degmadan ay leedahay wax soo saar dhanka beeraha. haddana waxa intaas u dheer degmadan oo ay caan ku tahay goobta loo yaqaan biyaha kulul oo goob taariikhi ah isla markaasina muddo badan soo jirtay ilaa iyo waqtigii Hayle Salaase. biyaha kulul ayaa waxa maalin walba imaado dad fara badan isla markaasina ka kala yimaado qaybo ka mid ah deegaanka dalka iyo waliba wadamada nujaarkana sida Djibouti iyo Soomaaliya. dadkaas oo qaarkood ay dhakhaatiirtu kula talisay inay tagaan biyaha kulul. biyahan kulul ayaa kuwa ka soo burqada dhulka hoostiisa waana dabiici waxaana lagu daweeyaa xanuuno kala duwan ay ka mid yihiin sida qabowga ama dhaxanta, faaliga, cuncunka, kaliya xanuunka iyo xididada iyo xanuuno kale oo ku dhaca xubnaha bini'aadamka. waxayna taasi dadka qaarkood u sahashaa inay helaan dawada ay raadinayeen. biyahan kulul ee ku yaala degmada Erer ayaa ah laba qaybood oo kala duwan. qaybta koowaad ee biyaha kulul ayaa ku taala dhanka bari ee degmada halka ta kalena ay ku taalo dhanka koonfureed ee degmada Erer isla markaasina loo yaqaan biyaha kulul ee Hayle Salaase taasoo waqtigii Hayle Salaase u isticmaali jiray isla markaasina uu ka dhistay guryo waqtigaas uu ku nasan jiray boqor Hayle Salaase. iyadoo ay tahay waqti barqo hore isla markaasina dadka inta badan ay ku sii kala hayaan biyaha kulul ayaan waxaan ka baxnay degmada Erer si aan wax uga ogaanay biyaha kulul ee degmada Erer. waxaan halkaa kula kulanay dadka oo saf uga jira biyaha kulul. dadkan ayaa iskugu jira haween da' odayaal iyo dhalinyaro iyadoona indhahaagu ay qabanayaan dad waaweyn oo garbaha lahayo goobta isla markaasina jooga biyaha kulul. Ismaaciil Idris waxa uu jooga halkan ku dhawaad 20 sano ugu dambeysay. waxa uu yahay mas'uulka biyaha kulul gacanta ku hayo. waxa uu ka warbixinayaa biyaha kulul iyo xanuunada lagu daweeyo. biyahani waxay leeyihiin dad waata meesha ugu qoran oo adimaha dadka jiifeed arkaysid bay dawo u yihiin. waa ka hay الله ويراكتي ماشي لكن أقلكم أنتم ديسين مدة لبعضن إيا شنا وكا ما لا قرقرة وباكل سنيد وكا قرقرة داير ما شتال عايشين كتابة اللي استعماله صح حقيقة صوب عن اليوم عيل بك صوب عن هالكم دبا بركد الدبدي ومركب بيوسين حقيقة يأكل إلى الله الله بيا إلهي باكل له بيا إله باكل له من دم مالك كي ما دين باجرت مسوا عيل كان بكسر عيل كونه صبح حيانا وبيف مبيسروا لي بيا أنا بامبط باورت الله واتدير عيل كو قايبينس وكا كان ياخذ بيه ياسني وقتي ما يدعي دبا مقودين وان حدناه صح بيه ماشي كم مريه ولا halkaaba way ku dhisan yihiin waad soo arki kartaan iyagoo cidla وكا saasoo bayska waxa loo xiray uu sibir bas waa soo galeen baambada waa ka dal lagu isticmaalay meesha meel kale ma jiraan meesha waa daf halka sare ay silaasiyo meel kas maya dhulka kale ee degmada maleeyeen waa labada meelood ma meel kale halkan iyadana lama isticmaalo wali lama isticmaalo dadka ereed bas kaga maydha waaka iyadoo bilaa lacag la isticmaala xanuunada daweeyaan baka waran cuncunka iyo jilba xanuunka iyo faalilisayga iyo wax badan ilaa 12 cudur waka meesha ku qoray aduu sano joogtaa halkan
anigu meelaha 20 waan ku dhow 20 sano joogto waan ku dhow okay bal waxyaabo dhowr iyo 10 sano dad ku dawo biyahan maxad ka xasuusta xitaa imika tan fadhida waa tawa aragtaa ay shalay gacmaha lagu waday maantana dabaday u fadhidaa ama waa biyaha ayaa daway ilaahay baa ku cafiyay ilaahay baa ku cafiyay biyahana ilaahay baa iskale booyo xagga ilaahay ka soo bixin oo ilaahay ku leeyay dadkuna wixii ilaahay ugu daray caafimaad way iskaga caafimaaday waa ka ku hela cunka jirkaas la iska xago meelaha dakhran waxyaabaha oo dhan uu daweeyay jilba xanuun iyo waxa waa iska aad buu fiican yihiin laga kala yimaado xaga kamid biyan dadka imaan Allah Ethiopia meel laga qayman ba ma jiro waa ka dalka Ethiopia marka laga baxo wadamada kale ilaa baa laga yimaadaa Djibouti iyo Soomaaliya iyo meelaha baa laga yimaadaa Kenya waxba ka yimid waa ka qaab noocan loo isticmaalaa biyaha dadka u isticmaalaan waa mayri daw ku meeranaya cabitaanka meel carbaxa jirto halka weyn waa ka kuwaana waa la cabaya waa la calooshana waa la mayri jirkana waa la mayri ilaahay baa deka nimcada ilaahay baa meesha dhig aad bay u fiican tahay meeshan in lagu isticmaalo inkastoo ay jiraan dad dhowr jeer ku soo noqday biyaha kulul haddana waxa isku soo tarayso tirada dadka imanaya biyaha kulul maalin kasta iyadoo u imanayaan caafimaad raadis aniga oo Faadna Cabdullaahi Reega baa waxaan umka nolosheeda waxaan isaga umanahay wadada maxay cali doora magaala qalan meesha yaan deganahay maxay hay'adda ciyaalkaygu waxay joogan Djibouti bay joogan Djibouti isaga uman yihiin halka ka shaqaystaan kolka maxay hay'adda aniguna maxay hay'adda halkan waa meel dheer dalkayga ma deyso halkan waa dalkaygan ku soo noqdaa 24 saacadood ma daayay bil walba waan soo noqdaa biyaha kululna waxaan u imid xanuun baan u imid kolka dacardi xisid baan u imid biyaha waxaan u imanay dacar iyo xilidiyo waxa baan u iman kolka ku maydhanay dacar baxnay wallahi caafimaad baan kala kulan caafimaad yaan kala kulan saddexda marba waxaan xanuun baan u imid waa ka imika ahaana maxay ahayd saaca maanta waan joojiyay ina barina ma aan doofaan doonaya caafimaad baan ka helay waan iska doofay la dirdaba imika waxaan joogaa maanta la shan baan joogaa maanta la shan yaan joogaa kolka caafimaad baan ka helay kolka dadka kale soo booqanaya inuu caafimaad u soo doono baan malaynaya caafimaad buu soo raadinaya soo waxaad garatay ma caafimaad way fiican yihiin si fiican bay dadka maxay ahayd nibcalooshiisa way shubayaan maxay ahayd biyaha maxay ahayd kolka biyaha qadal la cabo ee kuwa kale lagu maydho ee maraqa la cabo ee caanaha la cabo caanaha caagada waxaan naga siinayay waagii horete 5 riyaal ama 10 qarshan ku qaadanin imikana waxaan ku qaadanaa 120 hay waa ka qarash baan uga soconaynaa waan sii joogi lahayn oo lafaayaga waan sii baxnaanin lahayn laakiin qarash baan waxaan uga soconaynaa qarash maxamed aad xasan baa la yidhaah waxaan ka imid jigjiga waxaan imid biyaha kulul oo lagu sheegay in ma aragtay caloosha iyo socodsiiyaan caafimaad badan laga helay marka si awoodeed biyahaas aan u imiday waan dariiqa dheerna u soo maray gaari yarna u soo kaxaysanay labada iyadaba sidaasaan caafimaad awoodeed u nimid halkan maanta nooshana wax badan baan dareenay oo calooshii baa ku soconayso oo caafimaadkaagiba sidii hore iska bedelayo aad bay u wanaagsan yihiin biyaha markaad halkan fadhiisatid kulayl bay leeyihiin xididada oo dhan bay furfurayaan waka isbedel aad u weyn baa ii muuqda waa 3 jeer baan imid waka markiis 3 jeer waxaan kala kulmay aad iyo aad ma garanaysaa markana ugu sii fiican oo baabuur u soo kaxaystay waka magacaygu waxa weeyaan Cabdisalaam Xuseen Dugsiye Djibouti baan ka imiday sababtaan uga imidayna nervous problem baan lahaa xididada ayaa dhibaatooyin yar aan ka tabanayay halkan waxaan joogaa imika maalintii afraad faa'iido aad iyo aad u weyn baan dareemay biyaha kulul xididadaydii oo dhan way diiriyeen way furfureen baadeenna calooshana aad bay ii socodsiiyeen ilaahay ma hadii weeyaan markaa alxamdulillah waan tagay dhakhtar nervous problem Addis Ababa ku yaalaan tagay baadeenna kiniinaan ka soo qaatay dhakhtarkii laftigiisii baa igu yiri biyaha kulul way fiican yihiin tagoo soo samayso nerveska wax ka taran problem nerves xididada dhibaatooyinkooda
marka sidaa daraaddeed baaban u yimid biyaha markaan ku maydhay iyo imanka waxaan dareemayaa fudayd aad u weyn calooshayda oo socotay xididadayda oo aad soo diiraya sidii hore culayskii haystay aan aad uga fududa wallaahi waxaa iga baxay dhul aad u fiican dad aad u wanaagsan iyo nolol aad u fiican oo alxamdulilah ilaahay mahdi ilaahay nimcooyin badan uu dhigay wax walba ay wanaagsan ku dhawaad 8 sano ka hor biyaha kulul waxaa lagu meydhan jiray 1 riyaal halka hadda lagu meydho 10 bir waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan inay sabab u tahay kor u kaca biyaha kulul dhismaha laga hirgeliyo goobtan biyaha kulul waxay tahay cuntada waa qaali cuntada wixii ku cuni jiray kuma cunay marka waa qaali weeyaan xabadka waslada waxaan ku cunaynaa 10 riyaal maagii hore tay macal maraqiisa imikana wuxuu sii socdaa 100 riyaal iyo wasladii sii socota kolka waxaan maxay dadkii wuxuuna u joogaynin oo in badan u joogaynin oo lafiis ugu baxnaaninaynin qarash buu ugu baxnaaninaynin waa kaas maxay saa qarash darteed baan uga soconaynaa waa sida walaal 3 mar baan imid mar waxaan bixinay riyaal mar waxaan bixinay shilin maanta aan u dambeeyo 10 qarash baan bixinaa 10 qarash yaan bixinaa ambada waxaan naga siin jiray berigii horeete ilaa 20 ilaa 15 hal waxa baan ku cuni jir imikana 3 mid baan naga siiya dhulku oo soo gooyado soo hareer go'an yahay 10 qashi waagi horena intee hay qashi maxaa bedelaas leedahay maxaa badiyaa wax ma soo biya hay wala hagaajin wala kibileey wala hay qiimaha ka hor hadda meesha waa 10 weeyaan hadda ka hortay hal qarshi baa lagu galaa imikana 10 riyaal baa lagu galaa hadda sixirka meesha isbedela waa ka hadda sixirka maxaad ka wadaa biyuhu way soo baxaan wax qarasho saas idinkan igama baxo maxay tahay sababaha bedelay biyaha 1 riyaal aan ku naqaanay in 10 riyaal laga dhigo maxay tahay 1 riyaal waxa abu ah jiingada abu ah imikana aqal baa laga dhisay dhagax waa lacagtan xagee la geeyaa markaan masaajidada leh lacagta biyaha laga ururiyo masaajidka iskale waatay daawadayaal hadda waxaan ku sugannahay degmada Erar ee gobolka City gaar ahaan goobta biyaha kulul leh dad aad fara badan saad soo daawatayba muuqaalkii hore dad aad fara badan ayaa goobtan yimiday marka laga yimaado imaanshaha biyaha iyo waliba sidoo kale caafimaadkooda waxaa jiro haween kale oo ka faa'iideysto ama shaqo abuur ka helay oo fursadahaasi ka faa'iideysto Xawa Xuseen waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool ee degmadan Erar ee Siiba ee goobtan si ka shaqeysto iyagoo adeeg kala duwan u fidiya dadka imanayo haday noqoto quraaca ama furka waxa loo yaqaano dadka halkan imanayo ugu adeegto xaabul waxa laga warantaa shaqadan shaqada way fiican tahay waxaan dubaa la xoox quraacda dadka martida imanayaan siinaya marka waxaan ka shaqeeyaa 10 sano marka 10 sano ka shaqeeyay halkan soo ka waran waqtigii inta shaqadan aad bilaabin iyo hadda noloshaada saytay xisbad iska fiican tahay noloshaydu hadda koor inta shaqadan bilaabisay noloshaada ka waran intaan bilaabay shaqadan intii hore shaqadan bilaabina waan iska joogayo tacaruur 6 hay halkaan aan ku biiliyaa ma halkaan aan ku biiliyaa shaqa kale ma jirto xadaaga ay ugu badan yihiin dadku badan yihiin buuq yihiin hay aan cuntadana si fiican ugu iibsanaa way iska socotaa kolku dadku uu joogo si fiican baa u socotaa laakiin markuu dadku yar yahayna waa ka basay tahay dhanka kale waxaa jirto goobta loo yaqaano biyaha kulul ee Hayla Salaase oo ku taalo koonfurta degmada Erar oo loo yaqaano biyaha Hayla Salaase waa goob casar gaabana waxaanu ka baxnay degmada Erar anagoo tiro hawlwadeena waxaanu ku sii jeednay biyaha kulul ee Boqor Hayla Salaase oo kaga beegan degmada Erar dhanka koonfurta hadda halkan ku sugannahay waa degmada Erar waxaan ku soconaa xarunta biyaha kulul loo yaqaano oo lahayn jiray ninka la oran jiray Hayla Salaase wadadana hadda aan qaadayno aad arkaysaan socono waa wado tagto meesha biyaha waxaana la dhisay waqtiga Hayla Salaase dabcan waana muddo aad u fog mid kamid ah shofeerkeena oo isagoo maanta noo suurta galiyay inuu halkaan nageeyo ayaan isaga wadadana ka wareysanayna Ismaan Muuse leeyahay
dadka ka adeegaatay wadadan u adeego dadka inta badan biyaha kultawe bal ka waran maalintii dad intee lacag baad u adeegtaa oo biyaha kultago maalintii adigu dad xitaa xilliga waqtiyada dadku dhanku qabow yahay marka roobabka iyo aad ugu dadku badan yihiin marka waqtiyaasha xagaaga wadanada sida Djibouti oo kale looga imanayo halkan hadda ku sugan daawadayaal waa wadada ama jidka ku geynayo biyaha kulul gaar ahaan qaybta guryaha Hayle Salaasay ka dhisay biyaha kulul dabcan wadadan waxay ka mid tahay dadka taariikhda la socda ama ay noo sheegeen wada uu dhisay waqtigii Hayle Salaasay haddaba daawadayaal nala socdo waxaan ku soconaa hadda biyaha kulul gaar ahaan qaybta Hayle Salaasay dabcan laba biyood ay kala jiro oo qayb dhinaca bariga kaga taal magaalada iyo sidoo kale qayb koonfurta kaga taal marka dabcan saaxiib baan la socda boqol Hayle Salaasay wuxuu sanadkii ka iman jiray goobtan biyaha kulul ku dhawaad dhowr maalmood wuxuuna halkan xoolo ugu qali jiray ciidankii u watay boqol Hayle Salaasay goobtan waxaa ka dhisan guri aad qurux badan oo dhisay boqol Hayle Salaasay waxaa kaloo jira god lagu rido meydadka dadka uu boqorku dilo isagoona goobaan ka fogeyn ka daawan jiray meydadka lagu gurayo godkan hoolkan ama qolkan aan ku suganahay waxa weeye qolka jeelka ama xabsiga loo yaqaano oo waqtigaasi Hayle Salaasay dadka uu ku xiri jiray sidaan ka warqabno dabcan waa meel hoose sadarkaysan oo hoose dadka la galnay magacayga xasan maxamed cabdullaahi leela waa ka meeshan waxa ahayd meel Hayle Salaasay dhisay dadka gurigii xasbiga weeyaan marka kadib wixii aan soo gaaray iyo taariikhdan soo gaaray imikana aniga ka shaqaalaha waxaan soo malqay intuu bixiyo markii dadka halkan lagu toogto xasbigan wixii laga bixiyo halka lagu toogan jiray godna lagu ridi jiray godkiina ilaa imika uu banaayo jiro inta waan ka garanayaa daawadayaal sidii hordhacaad maqlayseenba ama wiilku sharaxay hogan wuxuu ka mid yahay goobaha marka dadka la laayo meydka lagu ridi jiray isla markaasina isagoo boqol Hayle Salaasay uu ka daawan jiray fooda sare daawadayaal sidoo kale goobtana aad aragtaan waxay ka mid tahay goobihii waqtiga Hayle Salaasay uu halkan joogi jiray uu ku xireysan jiray hubkan noocyadiisa kala duwan daawadayaal halkan kale goobtan kale waxay ka mid tahay goobihii ama goobta uu dhigan jiray Hayle Salaasay gaarigiisa sidoo kale daawadayaal halkan sida ay xogta igu soo gaarayso waa meeshii uu ku xireen jiray ayga ama aygiisu fariisan jiray xilliga gaariga ama baabuurtiisu halkan ay ka baxdana aygaas halkan ayuu ka raaci jiray gawaaridaas oo fuuli degmada Erar waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah ee deegaanka Soomaalida degmada Erar kulay dadku inta badan waxay u yaqaanaan degmada Erar Goota Erar Goota way ahaan jirtay marka degmada Erar magaalada Erar dhexdeeda waxaa jira biyo kulul oo ka soo burqada dhulka oo dabiici ah oo loo soo dalxiis tago waxa lagu xasuustaa biyahaas mid kamid ah waxa la yiraahdaa Hayle Salaasay Hayle Salaasay waa boqor Hayle Salaasay ee dalkeena ka arrimi jiray waqtiyada uu ku jiro nasashada soonka ah iyo iman jiray nasashada uu iman jiray biyahaasi waxa weeyaan waa biyo natural ah oo dhul aad iyo dalxiiska ugu haboon hataa waqti kamid ah 2009 balmarinaya la xusay deegaankana lagu qabtay maalinta dalxiiska meeshii la yimid bay ahayd والله dhibaato badan baa ka jirtay oo dhanka dayactirka ayaa dhibaato ka jirtay laakiin hadda dayactir baa lagu sameeyay biyaha kulul guriyooyin baa laga sameeyay magaaladu astaanta lagu xasuusto Erar biyo kulul Erar Goota biyo kulul weey marka biyaha kulul ee dabiiciga ah waa laba goobood mid waa taa Hayle Salaasay oo dhismayaal waaweyn baa ka jira oo qasriyadii boqorka iyo waxba ka wada dhisan kuwa kalena waa magaalada dhinaceeda bari bay ku yaalaan oo waa kuwa kale iyagana waa gaar oo ay ka dambeeyeen kuwaas marka biyahaas caafimaad badan baa laga helaa dadyooga ay dhibaatooyin badan kala soo kulmaan murqaha iyo jidhka ayaa waxyaabo badan baa laga sida imka faaligo kale xanuunka faaligo kale markuu qofku dhaco
maxay daanay hadduu biyaha isticmaalkooda badiyo waxaa la arkaa inuu ku bogsado meelo fogfog oo masaafo fog baa looga yimaadaa oo Soomaali kaliya ma timaado qowmiyaadka kala duwan ee Itoobiya ayaa yimaado oo soo dawo doonta marka biyahaasi waa biyo dabiici ah oo maxay daanay daawo badan ay ugu jirto oo bulshadu test gareysay hadda ka hor marka waxyaabaha lagu xasuusto erar ama taariikhdeeda lagu yaqaan ayay qayb libaax ku leedahay marka biyaha kulul waxa weeye xayl salaasi kaliya ma aha waxa hata degsanayd jabhadda kulmisti Cabdullaahi Yuusuf hogaamin jiray madaxweynihii Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf hogaamin jiray waxa deganaan jirtay waxay leedahay qaybihii boqorka uu fariisan jiray qaybihii maxadan nasashada qasriyadii baa ka dhisan waa goob ka tilmaaman dalka Itoobiya iyo deegaanka Soomaalidaba marka waa meelaha sida gaarka ah loogu xasuustay kamid tahay magaalada Eerad dhanka kale Ibrahim Saalax waa ruucadaal la soo shaqeeyay boqor Hayle Salaase waqtigii biyaha kulul haysan jiray waxaanu waqtiga Hayle Salaase u qaadan jiray ku dhawaad 25 bir oo mushaara waxaanu kula kulanay goobtan biyaha kulul ee boqor Hayle Salaase biyaha Hayle Salaase ku horeysay Hayle Salaase sanadkii wuxuu halkan iman jiray sanadkii 7 maalmood halkan ka fadhi jiray 6 maalmood fadhi jiray dhaarta 7aad wuxuu sameyn jiray amxaarku dibi u qali jiray oo amxaar wixii magaaladan wala iman jiray oo halkan dibida lagu cuni jiray maalinta 8aadna uu duuli jiray marka taariikhdiisu waxay ahayd inuu sanadii ka yimaado 6 isho halkan ka fadhiyo dhaarta 7aadna uu gibjo ku sameeyo uu halkani uu amxaarada ugu qalo dibi waxa islaani ma soo dhax galay amxaarku oo kaliya tiin buu qalay oo dadka wadanka joogana makiinada kolku wado lacag qadaadica intuu qaado saa ugu sheegin jiray oo dadku isku leeyin jiray lacag qadaadica dar abujadii ana uu keenayo xorxor buu ugu goynay nolosha dadka intaas uu ka galay taariikh badan buu lahaa Hayle Salaase beelalka halka lagu xulay dabdeel afduuba uu la geliyay ahayde dadkeena la tusay lama tusay ciidan baa ku meersanaa ilaa xerade burka guudkiisa ciidan baa fadhiyay burka kale ciidan baa fadhiyay burka suujeedka ciidan baa fadhiyay halkan ciidan albaabka ciidan baa ku meersanaa xagga iyo xagga wax u dhaqaaqay ma jirin dad soo galay ma jirin dad ogaan karay ma jirin qofkii la soo qabto qarjim halka baa la gelinay wax arki jiray ma jirin lacagaha waqtiyadii hore lagu meeran jiray ay hadda ka waran yaga sidee yihiin maxaa isbedel lacagaha waayadii lagu meeran jiray aqalkan 5 qarshi baa laga qaadi jiray dadka cadaanka iyo dadka nin sara uuna iyo dadka 5 qarshi baa laga qaadi jiray aqalkaaba hoteelaha lagu qali jiray looda khansiirka ariga yaa lagu qali jiray oo aqalada halka laga dhisayna store bay ahaanayeen alaabta iyo la dhigo cunnada iyo waxa dad badan oo koog ana u joogi jiray oo anagu gaar ka nahay ka eegi jiray alaabta iyo waxa iyaan mas'uuliyiin marka maxay ahayd halkan aqalkan buu u dambeyn aqalkii hoose ee booyadu ay ka cabaysay intuu ka soo qaaday buu halkan aqalka ku dhisay oo aqalka 10 santim buu laga qaaday upper league yaa laga qaaday aqalkana 5 qarshi buu ahaa nin cad iyo nin xidiga la daa qofka lima galay limaadka hoosaan eegi jiray 15kii cishaba qof baa xagga nala keeni jiray oo alaabta iyo waxa aan eegi jiray alaabta lagu shaqeynayo hoteelka qof alaabta uu shaqadiisu tahay oo eega yaa kolba yaa la isbedel loo soo dirayay sidaas aan isbedel ku imanay warsidaada baan wala joogaynay uu noogu iman jiray meesha shaqada oo
abeed baan sinilaa intaan idhaa u tegayno saa u ag joogjoogsanayno ka cabsoonayna haddana oon abeed baan ku odhanayna waxba nooma qabanayo lacag baan idii soo biirinaa biiraan ni imanaysa waa biirahan dee af oromo si biyaha u daadinayay af oromo noogu sheegay sidaadaa baan u weli joogsanayno sidaa u eegayno saasay ahayd biyahan hadda aan joogno waa lagu bogsadaa imikadani bil horteed laba oday oo mulli magaalada leela laga keenay oo sidaa u duuduubnayd yaa biyahani ku bogsatay oo kacday oo bakooradooda qaadatay oo dhaqaaqday oo reerkooda ku wareegtay biyahani gabadha fiiq laga keenay ee sidaa u jiiftay ee sidaa loo toosi biyaha dhabanka looga saro haynayay kolkay joogto 6 bilood iyay toostay barideeda u fadhiisatay ay ku maydhatay ay 7 bilood markay joogtana way kacday tuuladaabay iyay uga soo guraysay reerka alaabta reerkii ay hooyadeed ku ammaanaysay kaga tagtay iyay uga soo guraysay kabacdi kolkay bogsatay ay fay noqotayna biyahani caafimaad badan bay leeyihiin dad badanna way yimaadiin dad badanna way ku caafimaadaan qof naadir qof iyo laba yaa la arkaa waxaa ku bogsan waaya lagama waayo dad ku bogsan waayana laakiin dadka siduu badankiisu ku bogsadaayo isagoo fay oo caafimaad abu iska hoy waqtigaa Hayle Silaase uu joogayay xaggani ma soo galaynin nin madoobi gaala cadcad baa taandhooyin ku dhisan jirtay halkaa laga soo bilaabo ilaa 6 halkaa ka dilaacday yaa taandho sidaa iyay ugu dhisan jirtay sabtida iyo axadda qof madoobi meelahan ma soo gaadhay qaadii hore halkaa hoosa iyo aqal qorqorro oo guudkiyo gudaha qorqorro intuu uga dhisay iyo aqalkaa baambad ku geeyey baambadaasaa aqalkaas ku meedhanaya dadku biyaha aqalka ka baxaya iyo booyu halkaa hoose ku dhaqay oo booyadaasaa biyaha lagu maydhanaya cabis booyo wax khansiir iyo ku dhaqay oo biyaha cabbi jirta kabacdi uu roonaysiiyey oo aqalkaabu u dhisay masaakiinta guud ahaan intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijkeennii gaarka aan kaga hadlaynay biyaha kulul ee degmada Erar ee gobolka City aniga asxaabta igala qayb qaadatay barnaamijka waxaan idinku dhaafinaa barnaamijkan ku lamid intaan mar kale hawadaan ku kulmi doono in nabadino